kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa barta Facebook iyo waliba YouTube-ka aan ku leeyahay ee Burhan Janaal inta uu socdo barnaamijkeena waxaad si fiican ugu daawan doontaa xogtii ugu dambeysay ee walaalkeen Bilaal Bilshaawi bilihii la soo dhaafay halkan wax update ah maana soo gelin sabab jira awgeed laakiin maanta ama caawa waxa ay ku tahayba oo laga bilaabo halkan waxa kala socon kartaa wax walba oo ka dhaca caalamka iyo waliba dhulkeena hooyo fadlan mar kale waxaan ka codsanayaa in aad muuqaalka like noo saarto sidoo kalena qaybtii hoose ee commentiga aad uga duceyso in xaaladiisa caafimaad ay tamaam u noqoto sidii horena uu ku soo laabto walaalkeen Bilaal Bilshaawi waxa hadda qadka magaalada Muqdisho si toosan ugu jira goob jooge ku sugnaa goobta xala marka uu ka dhacay dilka loo geystay walaalkeen Bilaal Bilshaawi Bilaal waxa ka soo baxay tan iyo markii dhaawaca loo geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho mid ka mid ah warar kala duwan inkastoo xaaladiisa caafimaad ay hadda in ay soo roonaanaysan loo sheegay laakiin sababta iyo qaabka uu dilku u dhacay sida aan idin sheegayba goob joogo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa hadda qadka si toos ah ugu jira Burhanow horta in adeer aniga meesha waan joognay oo meesha abaar markay ahayd xalay 7 ama 1 saac oo habeenimo dadka si u yaqaanaan ma taqaanaa Soomaaliya marka meesha jawiga aad buu iskaga degnaa anaga waxa hore u aragnay maaha muqaayadahan la isugu soo galo la isku xabadeeyo waxaan uga baranayna maaha muqaayad waxaan fadhiyay la yiraahdo casri anagoo iska fadhino meesha iska shaaxeynayno oo ma taqaanaa waqti iska qaadanayno iska taqaanaa maalinta jimcada dhalinyarada iska soo wada baxaan waxa hal mar waxa noo sharaxdaa dadku warar badan ayaa ka soo kala baxaya dadka qaar ayaa waxay noo sheegeen in ragga dilaya walaalkeen Bilaal Bilshaawi ay isla fadhiyeen bal waxa noo sheegtaa inta uusan dhaawac noqon ninkaan in dhalinyarada wuxuu iska ahaa public figure in ma taqaanaa waxyaabo negative ka hadla muusa ahaan jirin nimanka wax ka dhaxeeyay iyo muran iyo ma aysan la fadhin nimanka gadaal ay ka imaadeen waa sii jeeday Bilaal gadaashiisa ka imaadeen wiilka ka soo horjeeday marka wiilka ka soo horjeeday gadaal bay uga yimaadeen gadaal markay uga yimaadeen bay bastoolad la soo baxay marka bastooladii markuu la soo baxay wiilka ka soo horjeeday ayaa wuxuu yiri war Bilaal iska jirtu dhaaya xabadii koowaad baa la helay oo meeshaan ma taqaanaa afka daanka inta ka soo gashay waxay ka baxday dhigta hoosteeda wuxuu ahaa kan iska jirdhahaya ma sidoo kale goob jooga goobta ku sugnaa mu ahaa mase Bilaal isla socdeen aniga saa filaayo Bilaal sheekaysanay inuu hal miis wada fadhiyeen wiilka Bilaal ay wada socdeen aniga miiska nagas ayuu ku ahaan fadhinay xabadii koowaad marka uu dhuftay bush ee tiri waa kala cararnay aniga meesha waa la kala cararay muqaayada kawliyari waxa ku jira wiilka kale xitaa dhaawac baan ku maqlay hadaan qaldaneen Burhan wiilka kaleeto xabadii markuu xabadii koowaad ee ku dhacday dhigta ka soo baxday xabadii labaad ee ku riday aniga waa fiirinay afkay ka sartay wiilkii iska jirdhahana waa dhaawaceen oo xabadii lugta ugu dhaftay Burhan marka saas meesha waxa uga dhaceen anaka waa kala cararnay dadka qaar ee aan ku sugnayn goobta oo dilku ka dhacay sababta ka dambeysay in Bilaal dila ay ahayd muran iyo isfaham waa dhex maray sidoo kale dad ayaa waxay leeyihiin Bilaal waxa ay rabeen ninkan in ay dhacaan ma dhacmiya jiray oo markuu dhaawacmay wax laga sii qaatay iyo ma jira mase qorshahoodu nimankan in ay wax dhacaan wuu ka weynaa Burhan nimankan inay wax dhacaan qorshahooda ma ahayn nimankan meesha waa soo galeen muqaayadana meel wax lagu dhici kara ma ahayn waliba aniga waxa ka shakisanahay waxa nimankan inay u shaqeeyaan niman dawladda u shaqeeyeen hatta sida caadada nimanka markay wax dilaan dadka markay wax dilaan ama ay wax dhacaan waa cararan nimankan markii falka fuliyeen si tartiib ay isaga baxeen ay ku lugeenaayo ay tartiib u baxeen hatta ma aysan cararin meesha ay ku taala muqaayadana meel waxa waayo oo wax lagu dhici kara maaha horta waxaan ognahay in aysan ahayn dadka hubka watay dad shacab ah inkastoo 2014 ilaa 15
xilli aan ku sugnaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho oo waliba aan deganaa xaafad la yiraahdo Buluxubey dhacday in dhalinyaro ay banooni isku soo maandhaafaan galabtii habeenkiina meel play station ah oo waliba dhalinyarada xaafadda ay ka ciyaaraan ba in ay soo galeen ayagoo biskoolada watay 6 qof ku dileen dhalinyaradaas dilka sameeynayay shacab ay ahaayeen laakiin ogow dawladda kaliya waxba lagu ma eedi karay waxa laga yaabaa in magaalada ay hubka ka soo qaateen arintaas inay jirto burhaan waa dhici kartaa aad ay u dhici kartaa dhalinyaradu waxbay isku qabsadaan ninkan nin public figure waaye lacag ay isku qabsan karaan waxbay isaga bixi karaan sababo badan aa dhici karo marka waxa loo badinayaa niman yaqaanay oo ama xurguf ama wax ay ka dhaxaysa ay tahay ay saas u dileen waxa saasa u badinaynaa marka maskaxda ka fikirnay ninkan wax lagu dilo ama sabab lagu dilo meesha maba oolinba wax siyaasada kuma soo dhex jirin markay ay xabadu ku dhacday Bilaal iyo yarkii kale sida waa noo sheegtayba inaad cararteen ma ku soo laabateen goobtii oo bal jawiga sida uu ahaa wax yar ma koobi kartaa burhaan jawigu wuxuu isku bedelay jawiga mid buuq oo isku bedelay oo dad badan ay yimaadaan meesha nimankiina ilaa 10 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo waxa dhici karna meesha mataqaana qoftu imaaday malahan nimanka tartiiba isaga baxeen dariiska ciidamada ma wateen mise dad sida dhar shacab u labisan oo kale ahaayeen maya burhaan dhar shacab ay wateen nimanka dhar shacab ay wateen niman waxay ahaayeen oo dhar shacab wato oo 2 nin ah ilaa 3 mid kale waa ku dhex jiray midamaaqan laba isla socoto soo okay marka ugu dambeyntii xilligan oo ay inii tahay subax ama barqo bal ayadana noo soo koob xaaladiisa caafimaad ee guud ahaan bal haddii aad wax ka haysid horta nimanka ilaahay baa ka bixiyay ninkaas nimanka dantoodu waxay ahayd ama muhiimadoodu waxay ahayd ninkaas inay dilaan oo madaxa jabiyaan qaarka mataqaana madaxa qaybta kore ay rabeen inay ka dilaan oo ku dhuftaan xilligan jawigiisa xaaladiisu ninka odayga ahaa waa sida aan ka aragna meelaha waa okay jawigiisa oo balaayo ma qabo ilaahay waa ka badbaadiyay laakiin targetka ama danta la lahaaya waxay tahay ninkaas in la dilo oo nafta la dhaafiyo kaas wuxuu ahaa goob jooge ku sugnaa goobta inta aysan dhicin dilka ama dhaawaca loo geystay walaalkeen Bilaal Bulshaawi iyo yar kale oo ay saaxiibo ahaayeen daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamij gaar ah oo aan uga hadlaynay xaaladda iyo qaabkii ay wax u gaareen walaalkeen Bilaal Bulshaawi fadlan haddii ay ku tahay markii kuugu horeysay oo muuqaalkeena ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa marka hore inaad muuqaalka like noo saarto sidoo kalena halkaan sidii horeba aad ula socon jirteen waxa ka daawan kartaan xilli kasta akhbaarta ama wararka ugu dambeeyay ee ka dhaca dalkeena hooyo iyo waliba caalamka oo idil fadlan waxaan idinkaga tagayaa oo aan idinka codsanayaa in aad walaalkeen Bilaal Bulshaawi aad u soo duceysaan in Ilaahay uu xaaladiisa caafimaad dib u soo celiyo qaybta hoose ee commentigana wixii fikir ah waan wula wadaagi kartaa